wareegto ka soo baxday guddiga doorashada maamulka Jubbaland ayaa kaga hadleen arrimo dhowr ah quseeya waqtiga doorashada iyo sidoo kale amaro ku socda xubnaha musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. warkan ka soo baxay guddiga doorashada ayaa lagu yiri diiwaangelinta musharaxiinta waxay qaadanayaan dukumentiyada isdiiwaangelinta musharaxa xilka madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland maalmaha iyo saacadaha hoos ku xusan ayaa lagu yiri taariikhda markay tahay 18 bisha Julaayo ee sanadkan maalnimo Khamiisa 9 saac ama saacad markay tahay 9 subaxnimo ilaa 7 duhurnimo. sidoo kale waxaa la yiri waxa ay socon doontaa ilaa Sabtida oo taariikhdu ku asteysan tahay 20 bisha Julaayo 2019 waxayna saacadu shaqadu tahay 3 subaxnimo ilaa 8 duhurnimo. musharaxiintu waxa ay keenayaan xafiiska guddiga dukumentiyada looga baahan yahay ee uu tilmaamayo xeerka shuruudaha musharaxa maalmaha 21 iyo 22 Luulyo 2019. fiiro gaar ah codsiga qabashada isdiiwaangelintu waxay ku egtahay baa la yiri maalmaha kor ku xusan. musharaxiintu waxay la soo xiriiri karaan xafiiska diiwaangelinta musharaxiinta ayaana lagu yiri warkan. sidoo kale shuruudo ayaa guddigan ay shaaciyeen oo ku socda musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. tartanka madaxweynaha Jubbaland wuxuu u furan yahay baa lagu yiri warkan muwaadin kasta oo reer Jubbaland ah haddii uu buuxiyo shuruudaha xilka dastuuriga ah ee soo socda. in uu yahay muwaadin Soomaaliyeed oo reer Jubbaland ah ahna muslim ku dhaqma diinta islaamka caafimaadkiisa iyo sidoo kalena miirkiisu dhan yihiin da'diisuna ay ka yareen 40 sano. 2 in uusan qabin xaas ajnabi ah isla markaasna guursan karin xaas ajnabi ah inta uu xilka madaxweynaha hayo. 3 in uu haysto shahaado jaamacadeed ama leeyahay ugu yaraan 10 sano oo khibrad ah maamul ama hogaamin dalkana ku sugnaa 2 sano ee ugu dambeysay. 4 in aysan maxkamad ku xukumin dambi xeer ciqaabeed ah. 5 musharaxiinta xilka madaxweynaha waxa ay ka imaan karaan baa la yiri golayaasha baarlamanka golayaasha wasiirada heer federaal iyo heer Jubbaland iyo dadweynaha qofkii haya xil kamid ah kuwa kor ku xusan iyo xil kale oo dowlad goboleed dhexdiisa ah ama dowladda federaalka waa inuu iska casilaa xilkaas inta uusan isku soo sharixin xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. sidoo kale shuruudaha waxaa kamid ah xubin kasta oo iska casisha xilkiisa ama xilkeeda waxaa lagu soo xulayaa baa la yiri bedelkiisa habkii uu ku yimid markii hore. musharax kasta waa inuu soo gudbiyaa dukumentiyada soo socda taariikhda nololeedkiisa shahaadooyinkiisa waxbarasho dukumentiga cadeynaya khibradiisa. si kastaba arrintan noqotee Jubbaland ayaa heer gabagaba iminka u maraysa qabashada doorashada madaxtinimada maamulkaas inkastoo aan weli la soo xulin xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Jubbaland kuwaas oo dooran doona madaxweynaha iyo xubnaha kale ee maamulka.